بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت. أنكو متلين الدولة إثيوبيا يا شعب إثيوبيا وحانون نمت إنه ugu tacsiyeyno qoyska qaraabada shacabka Soomaaliland iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed uu ka baxay Allahu naxariistay marxuum Ahmed Maxamed Maxamuud Silaanyo. marxuum Ahmed wuxuu ahaa hogaamiye noloshiisu ahayd mid u heelan adeeg oo in badan soo shaqeeyay shacabka Soomaaliyeed. waxaa lagu xasuustaa xikmad iyo dadaal joogto ah oo ku aadan nabadgelyada iyo horumarka geeska Afrika. si loo ogsoon yahay shacabka Itoobiya iyo shacabka Soomaaliland waxaa ka dhaxeeya xiriir dhaqan, ganacsi, taariikh iyo iskaashi qoto dheer. marxuum Ahmedna wuxuu door weyn ka ciyaaray xoojinta xiriirkaas isagoo aaminsanaa in danta labada shacab ay isku xidhan tahay oo ay wada jir ku gaari karaan horumar iyo barwaaqo. dawladda Itoobiya waxaa ka go'an inay sii xoojiso xiriirkaas ka turjumaya walaaltinimada, is-ixtiraamka iyo ka wada shaqaynta danta guud. waxaan leeyahay ilaahay dhammaanteenba ay naga siiyo samir iyo iimaan, isagana naxariistii janno Allah ka wara